waxaan maqlaayay magacyada especially baryahan markaan aan ciyaaraha daawanayay ciyaartooyda galmudug ka yimid waxaan ka maqlaayay magacyo aanan hore loogu ogeyn al-Zakhrawi Munye Ikar Macow oo Puntland iyo Jubbaland iyaga naftigooda magacyadaas wata macnaheedu waxay tahay tan waxay daliil u tahay cadeen u tahay isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ilaahay baa mahad iska leh oo caawa noo suurtageliyay inaan munaasabadan halkan gabagabada aan isugu imaano aan u dabaaldegno ciyaartii sida nabadda ahayd noogu soo gabagabowday alxamdulillaah waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida ee booliiska nabad sugidda iyo ciidanka xoogga oo xaqiiqdii iska kaashaday inay sugaan amniga waa mahadsantihiin aad baan runtii kaga mahad celinayaa ciidamada qalabka sida waajibaadkeena sida gudateen waxaan u mahad celinayaa ganacsatada oo runtii qayb kaalin muhiima ka qaadatay in ay encourage gareeyaan ama dhiirigeliyaan dhalinyarada ciyaartooyda oo runtii hadda bilaabay ama bilaaw u tahay ciyaaraha aad iyo aad yaan runtii uga mahad celinayaa ganacsatada magacyadooda halkan ay ku yaalaan qaarna runtii aysan caawa imaanin aysan ka soo qaybgelin xafladan munaasabadan wanaagsan aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed dhalinyaraha u badnaadaan sida wanaagsan ay uga qayb galeen in qayb uga ahaayeen amniga iyo nidaamka xasiloonida taasoo runtii noo muujisay xaqiiqatan bisayl dulqaad iyo ilbaxnimo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aad yaad u mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa macallimiinta kooxaha sida ay u tababareen dhalinyarada iyo sida wanaagsan ay u ciyaareen oo nadiifka ah oo aanan dhibka iyo aan lahayn aad iyo aad yaan uga mahad celinayaa garsoorayaasha iyagana waa u mahad celinayaa iyo xulkii hore ee qaranka oo aan caawa xasuusanay oo aan siinay mudnaanshaha iyo shahaado sharafka aan siinay waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta runtii waqtiga uu geliyay iyo siduu uga shaqeeyay iyo siduu determine u yahay inuu Soomaaliya level kala geeyo Cabdiqani waa mahadsantahay aadan kaaga mahad celinayaa shaqada wanaagsan aad umad u hayso waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir sida wanaagsan uu u martigeliyay soo dhaweyntiisa iyo martisoorkiisa Umar Finish waa mahadsantahay media sida mas'uuliyadda ku jirto oo meediyaha runtii uga qayb qaateen inay u cover gareeyaan oo sida habsami u socodka iyo sida ula socodsiinayeen shacabka hadba ciyaaraha si u socdaan aad iyo aad yaan runtii aan idinkaga mahad celinayaa waxaan idin leeyahay kulligiin shanta kooxood oo ka kala timid dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaan leeyahay hambaliyo xaqiiqatan qof walba oo ka soo qayb galay
waa guulaystay waa wada guulaysanay maxaa yeelay waxaan muujinay inay muqdisho nabad tahay waxaan muujinay inaan diyaar u nahay inaan isdhex galno waxaan muujinay inaan walaalo nahay runtii tartankaani wuxuu ka dhigan yahay ama daawo u yahay waxyaabo badan oo negative annaga muddo dheer nagu ahaa annaga ummadeenna iyo Soomaaliya iyo dalkeenaba runtii waa dal wanaagsan dadkeenu waa dad wanaagsan laakiin magacyo xun yaa noo baxay oo negative ah ciyaartu waxay daawo u tahay runtii waxyaabaha la yiraahdo xag jirka oo dhalinyaradu inay ku mashquulaan ciyaaraha oo ay ciyaaraan oo ay ka fogaadaan wax alla wixii dhibaato u keeni kara mujtamaca ugu horeeyo xag jirnimada qabyaaladda kama sokayso xag jirnimada qabyaaladda waxyaabaha Soomaaliya meeshaan dhiga weeye oo caalamka naga reebay oo wax aad iyo aad u fool xun ah laakiin caado iyo dhaqan noo ah dhaqankaas iyo caadadaasna aanan shaqo ku lahayn dowladnimo iyo magaalo joog dhaqanka qabiilku waa dhaqan miyi marka laguma maaragtay laguma wadi karo ama lama dhexgelin karo adduun casri ah oo ilbax ah ay ugu horeyso hab dowladeed muqaadaraadka wuxuu yahay daawo maxaa yeelay dhalinyarada intay ku mashquul lahaayeen waxyaabaha muqaadaraadka ah oo maandooriyaha ah inay ku mashquulaan ciyaaraha iyo entertainmentiga waxaa xaqiiqo ah meesha intaasaan sheego negative ah ciyaaruhu waxay leeyihiin intaas in la mid ah oo positive ah waxaa ugu horeeya oo la oran karaa midnimada ciyaaruhu waa astaan midnimo oo mujtamac aan is aqoon isu keenaya isbaraya walaaleynaya ay isdhex galayaan waxaan marka leeyahay hambalyo guud ahaan gaar ahaan waxaan leeyahay hambalyo kooxdii koowaad kaalinta koowaad gashay banaadir gobolka banaadir aniga dad badan ay weydiiyeen waxay yiraahdaan ma banaadir ahayd mise galmudug yaa ahayd mise jubbaland ahayd waxaan yiraahdaa waxaan ahaa banaadir ma aha meesha awowga ku dhashay waa meesha adiga aad ku dhalatay way kaalinta labaad galmudug iyagana waa u mahad celinayaa runtii dadaalka ay muujiyeen iyo ciyaarta wanaagsan oo xirfadda iyo maxaan ku yiraahdaa farsamada lahayd ee ku ciyaareen iyagu naftigooda runtii kaalinta labaad sahal ma aha in la soo galo kaalinta labaad haddii ay soo dhawaadeen oo ciyaartii ay tagtay rigoro macnaheedu waxay tahay kaalinta koowaad waxba idin mid jirto sanadka soo socda waa imaan kartaan kaalinta koowaad إن شاء الله waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo inay tan bilaaw noo noqoto oo aan ku ciyaarno isbartiibadii weyneed oo 80,000 qaadaysa Muqdisho Stadium inaan tagno hadduu Ilaahay yiraahdo oo ummadda Soomaaliyeed kulli meel kasta ay joogaan ay ka soo wada qayb galaan